بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha qaaliga janalkayga ku xir meel walba aad joogtiin waa idin salaamay walaashin Sacdiya Cabdullaahi janalka aad daawanaysaa waa Sacduush Cooking Channel ugu horreyn hadaa ku cusubtaan kusoo dhaweynayaa subscribe taaba kumbireeka rukumo hadaan nila joogtid soo dhawow like share comment ka taabin insha Allah asxaabay waxaa idiin wadaa maanta wax yar oo aad u qurux badan oo macaan badan oo casho ama quraac aad ka dhigan kartid inshallah waxaan haysto waa basal barbarooni hilib yar oo shiilan iyo 9 xabo oo ukun intaas ay ka kooban tahay marka insha Allah asxaabeyna la arkaa sidaan u sameeyno iyo qaabka uu ku soo bixi doono waxaan haysto waa baaquligan waxaan rabaa inaan basashii barbaroonigii iyo ukuntii aan isku daro hilibka gooniyo iyo ahana laakiin ugu horreyn hadda waxaan ku shubanaynaa basashii noo diyaarsaneed aan ku shubanaynaa hal xabo waa si yar u soo jarjaray waxaan kaloo ku darayaa barbarooni hal xabis baas oo ku darsan kartaa laakiin aniga ma ku daray ilmo yar raacunayo marka hadda waxaan ku shubayaa ukuntii waxaan sameynayaa weel aan ku soo bojinaa ma rabo ina dhammaan inta aan ku soo wada shubo waayo ukunta waxaa laga yaabaa hal xabo halaysan inay ku dhex jirto marka ma isku halayn karo waxaan sameynayaa baaquliga mar walba ku soo shubaa kadib aan baaquligan weyn aan ku soo ridanayaa inay nadiif tahay markaan arko haddii hal mar dhammaan ay ku soo wada shubtid oo 8 xabo haddii hal xabo ay kaa rafaadayso dhibkeeda leedahay marka taxadar ay iga tahay inaan dhammaan aan hal mar ku soo shubin way hadaa ku kalsoonaan lahaa ukunta dhammaanteeda hal mar aan bujin lahaa baaquligeedana ku shubi lahaa laakiin taas waxaa sameynayaa baaquli kale aan ku soo jibinaynaa insha Allah asxaabey nala socda waa kana all aan ku soo wada shubay marka waxaan sameynayaa wax yar fargeetada dhex marinaynaa xogaan qaseynaa si fiican isku dhex gelinaynaa ukuntan maasha Allah lagama sheekeyn karo aad u macaan badan tahay cashana waa ka dhigan kartaa hadaad jeceshahay quraac waa ka dhigan kartaa waxay diidayso ma lahan marka asxaabay waxaan ku darayaa xogaa yar oo filfish maasha Allah cuntada aad u macaysaa wayna carfisaa maho marka insha Allah filfil ku darayaa xogaa yar oo badneen ayada laftirkeeda ma iska badinayno wax yar qaadada marinaynaa waxaan kale ku darayaa cusbo xogaa yar cusbaan ku darsanaynaa maraqtiga ka taad jeceshaa ku dari kartaa laakiin aniga waxaan ku darsanayaa cusbo qaadada haafkeeda waaye wax maraq digaaga ma u dhabeynay waxaan kale ku darayaa xawaash ayadan qaadada haafkeeda waaye kadib asxaab waxaan sameynayaa si fiican aan garaacayaa waan is dhex gelinayaa waan qasayaa si fiican waliba maxaa la rabaa si fiican in isku dhex gelisid taas si fiican u garaacdid yacni markaa garaacdid waxay kaa caawinaysaa hadhow markaa taawada ku shubtid inay soo buubuufsanto ama yacni buubuufsitaan loo aqaan ama wax kale makasaayay asxaabi hadda waxaan dul imaanay taawadii dabka saaranay dabkan xoogaa daciifan ka dhigay dabka aad daciif mu ahan waxaan rabaa taawada inay igu soo kulaato marka hore laakiin markii aan saliida ku shubo waxaan rabaa low inaan ka dhigo dabka waliba waxaan ku sameynayaa jikooyinka tan ugu yar aan waliba daciif ka sii dhigay marka ma la rabo mar waliba dabkaada inuu xoogli ahaado marka ukunta sameynaysid way kaa gubanaysaa haddii kale marka waxaa sugaynaa ilaa ay nooga soo kulaato saliida markay noo soo kulaato waxaa kusoo shubayaa ukuntii aan soo qasay
ukunta dhammaan ku shubeyna asxaabeena la socda. ukunta xoogaa hadda ugu shubay dabkeena waan ka gaabiyey waxaan rabaa inay xoogaa yar ay soo qalasho ujeedin ma way soo buufsameysaa wax yar geesahan ka gaarsiinaya dabkana aad iskaga ilaali waayo dabkaada hadduu xoog leeyahay isla markii ukunta dabka kaa dafayso wayna kaa gubanaysaa mana la rabo saas xoogaa yar waxaan sugaa ilaa iyo ay nooga soo qalasho geesaha mar waliba gaarsiinaya waxaan rabaa inay qalasho waxaan u sugaaya waxay tahay hilibkii yaraa oo diyaarsanaa rabaa kor inaan ka saaro waa iyadoo saan u qoyan ma oo la saari karo wax yar waxaa la rabaa inay kaa qalasho ukunta inkastoo ayada karis badan ayna rabin hadda xoogaa ay qalaleysaa marka waxaan ku darayaa hilibkiiaan saarayaa geesaha dhan aan ka gaarsiinaynaa haddaad hilib haysanin mushkilad ma lahan yani markaas waxay haysataa ku samaysan kartaa ama waab iska dhaafi kartaa ukunta kaligeeda ku shuban kartaa waa labada dhinac ka gedinaysaa dhib ma lahan xitaa qudaar waa laga gelin karaa meeshan aniga hadda aan hilibka gelinayo aada qudaar waa ka gashan kartaa baradhii karooto kale waa laga gelin karaa wax waliba aad jeceshahay malaay xitaa waa laga dhex gashan karaa malaay toonaha gasaca aa ku samaysan kartaa wuxuu diidaya malahan haddana waxaan kor ugu soo shubayaa ukuntii kale oo noo harsaneed kulligii kor ugu soo shubaynaa marka asxaabi waan daboolayaa ilaa iyo waxay noo daboolnaanaysaa 3 daqiiqo dabkan aad u daciif u yahay waxaan rabaa inay kor dhan ay ka qalasho si fiican ay u qalasho kadib waxaan sameynayaa haddana dhinaca dambe haddana u gedinaynaa laakiin ugu horeyn waan daboolaa kadib waxaan sugayaa ilaa ay nooga soo qalasho 3 daqiiqaan u qabtay dabkana aad u daciif u yahay mar waliba dabkaada ka taxadir dab daciif ha kuu ahaado asxaabi sawir kaamirada iga halawday yani waxaan u malaysaa kaamirada inay xoogaa yar ay si qalad loo duubay marka dhib malahan laakiin hadda waan soo gediyey waa ujeedin ma dhinacii hoosaan quruxda badan leh kusoo baxday 3 daqiiqa u qabtay maasha allah ku dhahay lagama sheekeyn karaa caraf haddana dhinacii dambe aan u gediyey waxaan haddana sugaynaa ilaa iyo haddana 3 daqiiqo kale qaandada wax yar aan ku riixriixaynaa waan daboolayaa 3 daqiiqo kadib haddana kusoo laabanaynaa asxaabey maasha allah asxaabi waa kana dabka markay kasoo baxday dhinacii kale waaye saan u gaduudan maasha allah quruxa kale lagama sheekeyn karo kala reer qurux badan ay samaysay yani ay kusoo baxday kalarkan aad u jeclaa aniga cuntada inaan ku sameeyo wax waliba aan duwayo waxaan jeclahay kalarkiisa sidaan inuu noqdo dhinacii dambena sidaan u egyahay isagana kalarkiisa maasha allah waa qurux badan yahay kor iyo hoosaan uga gaduutay maasha allah asxaabi lagama sheekeyn karo haddana waxaan bilaabayaa inaan jaro waxaa idin tusinaa dhexdeeda iyo hilibkii ayada say iskula qabsatay iyo sida ay kusoo baxday iyo say u qalalan tahay maasha allah waa kana asxaabey run ahaantii ma isdhehaysid ukun waay waxaan markaa arkaysid caadi aa arkaysid waxaas leedahay wax kale waaye laakiin ukunta laftirkeedaaba waxaan ku dhahay ama caadi ahayn maasha allah waaye qadan waa ka dhigan kartaa quraac casho waxay diidaysa waxaan ku dhahay sariix xitaa way gashaa maasha allah waaye insha allah asxaabey khayr iyo caafimaad isku ognahay fi amaanillaah waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtiin nabad qab iyo caafimaad idinku rajeynayaa meel walba aad joogtiin haddaad ka hesheen like subscribe share
comment fikradaada commentiga noogu reeb wax alla waxaa jeceshahay inaan idin soo geliyo khayri bashbasha isku ognahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.